maalimahan dambe suuqyadii waxa ku batay cabsidii iyo weerarkii war haddiina soo gaaraya wuxuu sheegaya suuqyada oo idil inay maran yihiin taasoo sababtay dagaalo baryahan meesha ka dhacayo in la filayo weerar in la soo qaado amnigeena aad ayuu adkaa laakiin annaga ma filinin weerarkan burcadda inay nagu soo qaadayso laakiin dhib ma laha wixii kale annaga ayaa xallinayna isdejiyo shacabkuna booliska waxay ku dhaliilayaan shaqo xumada ay maalmahan dambe hayaan taasi waxaa ka daran sida la sheegaya booliska inay ballan qaadeen burcadda weerarka geystay inay gacanta ku dhigayaan laakiin ilaa iyo hadda wax raad ama aysan helin balse waxaa la filaya waqtiyada soo socda booliska inay warbixin lagu soo kordhin doono taasna waa idiin soo gudbinayna waa anigoo ah jayba filimkani waxaa lagu tarjumay studio Famproj Mogadisho Famproj.com কাছে বাধা পড়ে গেছি ভিড় আজও একা হলে তোর কাছে ছুটে চলে আসি তুই মন ছুঁয়ে গেলে ঠোঁট মেখে ফেলে হাসি অচেনা শহরে আজও হেঁটে চলি তোর পাশাপাশি পাগলামো তুই না থাকলে মন তাকে আর পাগলাবো চুপ কেন সব বুঝে অযথায় বোকা সেজে কিভাবে বোঝাবো তোকে হ্যাঁ আমি কতটা ভালোবাসি তুই বড্ড বাজে পারিস তো মাঝে মাঝে যে কোনো বাহানা খুঁজে আসতে আমার কাছাকাছি ঠিক ভুল ভুলে আমি তোর কাছে বাধা পড়ে গেছি ভিড়ে আজও একা হলে তোর কাছে ছুটে চলে আসি মন খারাপ ভিড় করে আজও তুই দূরে চলে গেলে তোর কাছে শান্তি তাই থাকছে না মন কোলাহলে থাকলে চুপ নিঃশুনে চোখেরা কত যে কথা বলে আদরে অভিমান ভুলিয়ে দিস রেগে গেলে আজ আমায় মানিয়ে নিস চোখ যদি জলে ভাসে আজ আমার পাশে বসে আলতো দু হাতে চোখ মুছিয়ে দিস ঠিক ভুল ভুলে আমি তোর কাছে বাধা পড়ে গেছি আজ একা হলে তোর কাছে ছুটে চলে আসি তুই মন ছুঁয়ে গেলে ঠোঁট মেখে ফেলে হাসি অচেনা শহরে আজও হেঁটে চলি তোর পাশাপাশি run ahaantii maanta xasuus ayaa i gelisay waagii kolleejka aan dhigan jiray waxaad ii imaantay maalin anigoo maqaayadda ku jira waan xasuustaa weliba waxaad i weydiisay aniga lambarkayga laakiin waqtigaas shaqadaada iyo sinjina sidaan dareemaya mowqif adag ayaad dhex dhigaysaa su-aashaada jawaabteedana laba mid ayay noqonaysaa waa adiga ama shaqadeeda waad saxantahay iga raali noqo aniga waxaan isku dayaya in aan wax ku fahansiiyo balse adiga wax waa fahmi weyse dhibna uma arko mudana feelka waa kana loo qabso waaya walaal mii maqashaa codkayga ku soo gaaraya mii maqashaa walaal
السلام عليكم شهزاد ayaa kula hadlayo qasriga qadiimiga ayaan ku sugaya hadiyadaad igu tala gashay aniga keligay maan xataa familka dhan way joogaan hadiyad iyo lama filaan iyo fariin iyo qasriga qadiimiga astaanta isticmaalaya marka arka waxay cadaatay burcad inay yihiin raajesh waxaan kaa rabaa adiga wax walba inaad ii soo ogaato codkana aad ii tixraacdo meesha ku sugan inaad ila socoto waad gaarto ma nimraad adigana waxaan kaa rabaa telefoonkaas meesha laga soo garaacay inaad soo ogaato waa igu ogtahay waxaan rabaa inaan ogaado ninkaasi cidduu yahay iyo weliba qasrigaasi meesha uu ku yaalo waa qasab inaan ogaado على كل حال aniga waxay farxad gelinaysa mar walba inaad garabkayga taagan tahay aad naga soo hormuuqato laakiin wejigaaga dhol caddeynta maxaa loogu laayay runtaa waxay tahay adiga waxaad u malaysaa shaqadaada inaan necbahay laakiin shaqadaada waana ixtiraamaa xaalad adag ayaa ku jirtaa waxaa qarsato way ku qarsadaan xisaabta ku darso marwa meesha lagaa soo wacaya markaan ogaano waa keenta inay tawaaban ogaadeen meeshay ka tahay inaan ogaado waa muhiim waay marwo warbixin ayaan ku hayaa codka qofkii lahay waan aqoonsan weyne balse laba cod isku eg ayaan aragnay shehsaad iyo aftaab codkoodu way isku egyihiin baaritaanka markaa sameynay sidaas ayaa noo soo baxday aftaab ansaari alla ilaahayo asxaabta ilaan aftaab ansaari uu soo laabtay ninkan aad u jeedaan waa maskaxda weerarada dhacay oo dhan xitaa safaaradda maraykanka wixii ka dhacay isagaa qorsheeyey shehzaadaa oo magac afgarishihiisa ku beddelay aftaab ansaari weerarkaas kadib isagu wuu ka soo tegay magaalo ayuuna tegay macluumaadkiisoo dhanna saas ayaa loo aas-aasay ilaa hadda boolisku kamoor hayaa meesha uu ku sugan yahay booliskuna ma oga aftaab ansaari magac garashihiisu inay isku beddeshay ka gudub middaas hadda waxaan kaa rabaa wax walba isaga ku saabsan inay tixraacdo raajesh adiga waxaan kaa rabaa wax walba fiilkaas ku saabsan inaad ku dhaqaaqdo dhaqso mishinka shehzaadaa waa inaan guuda galnaa burcadan waa inaan waddankeena ka sifaynaa weliba innagoo dareyskeena wadan dhoola caddaynayna carruurtana iyagoo dhoola caddaynaya waa inay guusheena ku farxaan si fiican ayaanu ogahay daakir arrintan shaqada markaa ka soo baxda kadib marna ma istiri xaaskaaga xaaladdeeda waa sidee ma iga fikirtay ma ogaatay wax aan ku suganahay waxaa adag marba haddaa ka tirsan tahay ciidanka sirdoonka inaad nin wanaagsan noqoto sababtaad u noqonayna waxay tahay waajibka dalkaaga ayaa ku saaran soo maaha sirdoonka lambar 9 may maqlaysaa ها أماندا وحكول الله زاكر أحمد إيجار لنا قمادام حلقان كدبي لكن وربحين عصب أيات شرته قفك قاعن كسر هاللي أنصاري اسكعد أي نقطين تاس أيانا نقشك نجلسي أفطاب أنصاري ما يتري أوكي ماشي بدي كرصة ولا متحر هذا ها وانتحنا أنا إلا يهدي لكن ما أنا أقوم سم ماشي أي تاي معلومات كنا سوق قالنا واحدة بارتان كان يوقع لما أنا يقول حريري ويا هتليه لما أنت ودي مقشة صومة تلفونها ديار صدق ويا مرو sirdoonka lambar 9 ayaana howlgalka hogaaminaya kooxda ABC na diyaar waxay tahay garab inay kugu siiso mishinkeena shizaadna hadda ayuu bilow yahay sirdoon 9 ayaa idinla jiro aftaab ayaan gacanta ku soo dhigayna meesha uu joogana waxay noo jirtaa 2400 mitir garabna waan u baahannahay midaas waa inaad ogaataa anigu garab kuma siin kara hadda waxaan kaaga baahanahay hawshaas adigu si degdeg ah inaad ku dhamayso ma ay maqashaa hawsha si degdeg in adigu ku dhamayso ayaa loo baahan yahay alo ma maqashaa shit saakir adiga maxaa kaa qaldan ii sheeg sanjina howlgalkan waxaa liiga rabaa inaan galo aftaabna gacantan ku soo dhigo meeqa jeer ayaan ku dhaha adigoo howlgal u socdo waa ku baryaa gaarigaaga ha igu kaxeen hadda aqligal miyaa marka inaan kuu raaca meeshaad shaqada ka soo qabanayso kale adiga maxaad iga filaysaa ma burcadkaas ayaan u ogolaada waddankayga si xurriyad leh inuu ugu noolaado ma halkaan iska fadhiya aniga aniga sababtan kugu baqaayo mala socotaa horta
howlgal ayaad u socotaa ma ogtaha inta qof oo kaa horraysa waxa ay yihiin waad iska socotaa ka waran bal hadday dhibaato ku soo gaarto amba dadkaas ay ku dilaan yaa loo raacanayaa hadhow shaqadaada leh ha ku indhaadkaan shaqadaada aniga waad anigoo kale waxaad ogaataa waddanka in loogu talgalo naftii waro ninaa ehelneen maxaad iskaaga dhigaysaa famil ayaa kaa dambeeya dhulka miyaad ka dhalatay ii sheeg wax maqal horto waddanka ayaa familkaygiya wax isku sheegaya qayceeb maaha dantaada waay waxaan ka hadlaay inaad fikirtid isku day waa maxay sababta madax adeegaana iga aamus warkaygana maqal gaarigan ayaan kaaga dhex tegaya meeshaannaa ka tagno waa gartoma ha samayn adaan kula hadlaayaa joog saakid adaan kula hadlaaya xaggee u socota ifaan gaarigaa ka soo degin meeshaad iga joog okey yaaqay kaalay أماندا مي مقاشا برتلمامتك وان تاغناي أماندا أديكن كula hadlay bartilmaameedka waan taaganahay qasriga qadiima lagu sheegay waa guri cariisha 9 nin ayaana meesha ku jirta mid kamid ah waxay la tahay aftaaban saariin uu yahay howlgal wacan ayaan ku leeyahay waxaan ka rabaa sidaas inaad warbixinta igu soo gudbiso sheehzaada meesha ku sugay waa qasab inaan ogaano sidoo kale talaabo walba ay qaadayaan inay la soo socodsiiso waa muhiim tiimkuna wadadii ku soo jiraan dadaal ayaan ku leeyahay howlgal wacan sheehzaad cariishka waa uu ka soo baxay bacdama saasay tahay waana weerar ku qaada maya adigu talaabo ma qaadi kartid halis ayaad ku sugan tahay 5 daqiiqo oo kaada tiimku way ka soo gaarayaan kaliya inaad talaabo qaado waa laga fiican yahay maya fursadan waa inaan ka faa'iideystaa dadkaasna gadaal ayay ka imaanayaan waan sugayaa goobtana aniga ayaa u sheegay kulley hawsheeda waan qabsanaya aniga maya adigu talaabadaas waxaas adiga lagu dhahaa nabaday tali adigu may maqlaysaa waan ku barayaa sug tali shit walaal dad ayaana daba taagan waa inaan iska ilaalinaa halo may maqashaana halo maqal ma jiraa halo waxaan kula hadlaysaa saakid xaaskiisa halo run ahaantii annaga dhulka kayma ayaan joognaa xabada ayaan socdo ninkayga caawinaad ayuu u baahan yahay waa idin baryaa halo ama haddaa may maqashaa marwa si fiican adigu ii dhegayso keliya waxaan kaaga baahanaya inaa isdejiso isaga tiim ayaan u soo diray goor dhowna way idiin imanayaan keliya waxaan kaaga baahanaya inaa isdejiso ninkaasina wuu isdifaaci karaa ha ka warwari waan ku barya adigu raaliya gaadhiga ha ka soo degan ayaan ku leeyahay halo
qaacidooyin waxaa jirta annaga aan isticmaalno waxaa ka kowa kufaarka inaan dilno tan labaad si aan kufaarka u dilno waa inuu qalad naga galaan qalad markuu naga gala kadib ciqaabtiisa ayaan annagana marsiinaa magacaygu waa aftaab ansaari naanaysteeduna waa shahzaad sixirka madowna aad ayaan ugu dheerayaa interbolka aniga maxay ii yaqaanaa ma taqaanaan ruuxaanta madow ma awoodaan aniga haddii ay qabtaan xataa inay iga hor istaagaan jihaadka aniga aan u socdo balse aniga waxaan awoodaa kufaartoo dhan inaan baabbi'iyo ku soo dhowow balenbi shahzaadda haddii aad gacanta ku dhigto ogow 3 daqiiqo oo keliya 3 daqiiqo oo keliya ayaad haystaa kadib wax walba ayuu samayn karaa 1 2 3 سنجنا إلى هذا سنجنا وبتباديسا أنا جاي أسبيتال كوكينا وحباك بقين سنجنا إلى هذا سنجنا هناك رفع سنجنا adiga wax kasta oo samayso waxa laga rabaa dalkaaga in aad gacan bir aad ku qabatid waxaan kale aan kula dardaarmaya aniga dadka sidan ii galay dad kale iyaysan sidaanoo kale u gelin dalka waa inaad xuraysaa ha ogolaani مي سنجنا يا سنجنا سنجنا اسئل علي يا سنجنا سنجنا وكبري هاي قلت سنجنا هاي gurigaaga cusub ciwaankiisa waa kana midda kale warqadaha subarlogyadan oon ku diyaariyay tikidkaad safarku aadi lahaydna kalkata feelkan ayuu ku jira wiilkayga anaga kaama tegi karna run ahaantii waayo keli ayaad noqonaysaa wiilkeenoo kalena waa tahay marka kelinimada ayaan kuu diidannahay aniga baan jeclahay inaad ila joogtaan laakiin joogistiin aniga wax miisoo kordhinay sababtoo ah waxaan ahay nin geeri u labistay mar walbana geeridu way dul taagan tahay mana rabo dadkayga ama qaraabadayda geerideeda inay saameyn ku yeelato sidoo kale cunugtayda diyaana waxaan rabaa nolosheeda inaysan halis gelin mas-uuliyaddeedana si wanaagsan aad u qaadaan oo aad ilaalisaan weliba sidaad aniga iyo xafidaan oo kale waxaadna ballan iga qaadaan cunugtayda inaadan u sheegayn aabbaheeda inaan aniga ahay sababtoo haddii ay taas dhacdo gabadhayda nolosheeda halis ayay gelaysaa marka waa idin baryaa middaasi oo keliya ii sameeya gabadhaydana ii ilaaliya maxaad samaysayna adiga wixii oo dhan faraha ayaad ka qaaday soo maaha maxaa ka wadaa marba adiga haddii aan ku waayey wax walbana waan waayey waxaad wayna way jiraan waana gabadheena diyaa shilka markuu igu dhacay kadib adigaa xanaanaynaya soo maaha shil maa tiri waxaasoo dhan sababtayda ayay ku maya saakid
adiga ma guuldaraysanin waxaad xasuusnaataa hal qalad oo dhacay dartiis inaan wax kasta aadna u dhaafin mas-uuliyad culus ayaa dusha kaa saaran laakiin aad baan kugu xiisay aniga kaama fogi waxaana rabaa mar kastaba inaad ahaatay saakidkii aan ku fahani jiray inaad joogsato ma rabo wax kastoo dhacayna waa inaa ilowdaa waan la socdaa tallaabadaas inay kuga adkaanayso balse waxaad mar kasto maankaaga ku heesaa garabkaaga in aan taaganahaa si degdega xafiiska inaad ku timaado ayaan kaaga baahnaa taliya zakir warbixin buu soo gaarteen adiga weliba warbixin dhammaystiran raajaa oo ku sugan koonfurta kalkata ayaa ii soo gudbiyey waxaana ogaanay aftaab ansaari inuu hadda ku sugan yahay kalkata ruuxaanta madow halkaas ayuu joogaa bar tilmaameedkii sheeg waddada mehraa mahli bazaan aftaab meesha ugu dambaysay lagu arkay waxay ahayd barxmaan 2 bil ka horna wuxuu qarax ka fuliyey goorgoor isaga iyo asxaabtiisana meeshaas ayaa guri uga samaysan gurigaasna bambooyinka ayay ku sameeyeen daraagiska ayay ku iibiyaan warbixinta ugu dambaysay waxay sheegaysaa ninkaas meeshaas hadda inuu ku sugan yahay agaarkaasna uusan ka dheereen howlgalna uu rabo inuu meesha ka soo abaabulo wuxuuna rabaa hadda meesha inuu ka tago sababtoo kalkataa ayuu u soo socdaa wuxuu rabaa howlgalkiisa inuu kalkataa ka dhex fusho laakiin waa inaan ka hor tagnaa intuusan howlgalkaas fulin zaakir waa doorkaaga noo sharax taliya 2012 dawaaris ayuu qarax ka fuliyey gargajaar 2014 ka fuliyey maantana waa kalkataa howlgalkeena waa uu iska fudud yahay aftab ansaari waa inaan soo afjarnaa sida ugu dhaqsiyaa badan amaanta mudane waxaan kaa rabaa koox habaysan oo diyaarso sida ugu suurtagalka badan ninkaasi waa inaan ka hor tagnaa meeshaasina ka dhaqaaqin asxaabta aftaab ansaari meesha ku sugan aan soo helna hoteelka kitaali maktabad ku dhex taalla ayuu ag taagnaa sidoo kale waxaan soo hubinay meeshaas inuu degan yahay wax walbuu samaynayna halkaas ayuu ka fuliyaa warbixintaas oo dhan waxaa ii soo gudbiyey nin biitu lagu magacaabo wuxuuna ii sheegay sidoo kale hoteelkaas inuu qolka degan yahay laakiin qolkuu yahay ilaa hadda anagu maana aqoonsan waxaan ogaanay oo keliya ninkaas howluhu wadoo dhan qolkaas inuu ku fuliyo laakiin hadda dantan waxayba tahay qolkaas wuxuu ka dhex qabanayay danta uu leeyahay inaan soo ogaano faylkiisa inaan soo baarna ayaa muhiima qolalka idinna waa inaad baartaan magacyadana waa inaad dib ugu laabataan waxaa macquul ah hal magac inuu idinka baday shabuna shaa wuxuu ka shaqeeyaa maxkamadda sidoo kale 2 qol ayaa magaciisa ku karaysan amiir shoodi waa ganacsade sidoo kalena 2 qol ayaa u karaysan sibeertan sidoo kale 2 qol ayaa u karaysan beebi iyo jadhaaf laba lagu magacaabana 4 qol ayaa ku karaysan amiirka aad sheegayso waa sheezaas amiir shawdari asaan sheezaas la dhahaa sidoo kale qofka meeshaas degan magaciisa dhabtaa waa aftaab ansaari amaanda hoteelkaasi waa inaad rag u dirtaa weliba waddooyinkiisana waa in la fiiriya inta soo galaysa hoteelka inta ka baxaysana waa in la soo ogaado qolalkiisa intuu ka gomayana waa in la ogaado ilaa ay idinkaga imaado talaba ma qaadi kartaan waaya mudan laakiin adiga tilaabadaas ha isku qaadeen sababtoo meeshaas shacab fara badan ayaa joog adoo dantaada fiirinaya shacabkaas ha baabi'inin sababtoo shacab masaakiin ayaa halkaas ku nool hal xabaad haddii aad rido soo ma ogid ayagan in la baabi'inayo dhibaatana ay soo gaarayso adoo dantaada fiirinaya rabtaa marka dadkaas inaad dhibaato aftaab ansaari ayaa meesha ku sugan dadkaasna asaab ansaari hadduu meesha ku sugan yahay waxaa loo baahan yahay qolkuu ku sugan yahay inaad soo ogaato warbixintiisana aad soo gudbiso uu kaadi hadalkayga dhegeysa afkaaga inaga
ma loo baahno doorbinkaaga aftaab ansaariya oo keliya inaad shiishada sar waxaa loo baahan yahay dadka ku hoos dhuumanayo in aad soo qabato dadkaas sidaad ku soo qaban kartaa waa markii aad u kurba gashamo ka fiirsaan ku dheelaa amaanda qorshe maxaa haysaa taliya waxaa loo baahan yahay tallaabo markaan qaadayno 100 jeer inaan ka fikirno ninkaas waa nin aqli badan waxaana loo baahan yahay qorshe aad u adag oo isaga ka adag inaan u degno maahana si kale gacanta kuma dhigi karno taas sidee ku suurtagelaysaa ma waxaan ogaan karnaa marka aftaab ansaari halka uu ku dhumanayo 9 bilood ka hor boolisku gacanta waxay ku soo dhigeen inaan yaroo jaamacad dhiganaya laakiin kadib xirfadiisa markay ogaadeen waxay go'aansadeen gacanta inay ka qaadaan ay bannaanka u sii daayaan sababtoo ah xirfadiisa inuu ku meel maray go'aansadeen adigu gabay ma garanaysaa warshadda ganacsigooda waxay ka samaysan tahay bir adagoo la geli karin sidoo kale iyagoo qof ka mida mooye qofka lacagta inuu geliyo lagama yaabo laakiin haddii uuna qof bili'aadani geli karin aftaab ansaarina la kulmi karin baashan ayaa gelaysa caawo howlgalka annaga ayaa ku qoran gaalada inay seexata ma rabo waxaan rabaa kufaarta in jiifka loo diido annagana aan shihidno askari dhegeyso ahaa taliya howlgalka waan bilaabaynaa laakiin waxaad ogaataan meeshaas marka hore inaad iga hubisaan hoteelka cidda soo baxaysa cidda sii galaysana waa inaad si fiican u fiirisaan waaya taliya wax su'aalah midda kale meeshaas waxaa ku yaalla hoteelo fara badan waxaa macquul ah in xabado la isku bilowo xabad idinka inaad ridaan uma baahna midna waa inaad xusuustaan ilaa ay idinka imaado waa inaad ilaalisaan dadka meesha degan hana fududaanna adigana isdejiya waryaa dad ayaa gudaha soo galay waa inaad digtoonaagtaan is ilaaliya aftaab ansaari asxaabtiisu way ogaadeen gudaha inaan anagu hadda soo galno waryaa waa inaad dadka iska dhicisaa sidaad xabad ugu wadaan in wejiyadooda la aqoonsi waaya ayaan u baahanahay iska dhiciya dadka meelna iska saar saakir ka soo laaba ayaan ku leeyahay waddadan ka soo laabasho ma lahana maanta iga raalno howlgalkan sidiisa ayaan u wadaya adigu waxaad ii sheegtaa qaabkaan u dagaalamay laha oo keliya waa i garad soo maha zaakir may maqashaa ka soo laaba ayaan ku leeyahay tiimka koowaad waxaa ku wargelinaya inay ka soo laabtaan halis fara badan ayaa jirta ka soo laabta ayaan idin leeyahay tiimka saddexaad iyo tiimka afraad ba waxaa lee ka soo laabta ilama ahan maanta meeshaan nolol inaan ugu baxayno weerar culus ayaanu lagu soo qaaday waa inaan isdifaacnaa
kafee ma cabaysaa waa mahadsan tahay laba akhbaar oo aad u xun ayaan idin hayaa akhbaarta koowaad waxay sheegaysaa aftaab ansaari gurigiisa in uu ka baxsaday gurigiisa markii la galayna talmaad waxay sheegaysaa wax tixraaca in laga waayey meeshaas laakiin ugu dambeyn waan soo heli doonaa tixraac dadkaas aan ku tixraacno hal midna aan idin sheego dadkaas waxay diyaar u yihiin si ay annaga noola dagaalamaan qorshe labaad in ay la imaadaan annagana waxaa noo muhiim ah aftaab ansaari dhaqdhaqaaqiisoo idil in aan la soconno ha noqoto fariinada asiguu soo dhaco dadka soo waca inta waa inaan la socnaa hal macluumaad haddii aan keenno macluumaadkaas wuxuu noo sahlayaa ninkaas sidaan gacanta ugu dhigi lahayn aftaab ansaari waa madax burcadda tiimka lagu magacaabo jeyshuraxma ayaa ilaaliya dhaqdhaqaaq walba oo aftaab ansaari ku saabsan mana rabaan inay bannaanku baxaan annagana waxaan rabnaa inaan gudaha u galno oo aan jabsanno ammaanta adigaan kuu xil saaray hawshan iga soo gebagabay ninkan ha igu halen hay see you amarkaaga jir taliya saddex koodhoo kala duwan ayaan soo helay saddexdooduna si kala duwan ayay u qorayiin mudane midka u horeena wuxuu ka kooban yahay 10 xaraf BOM triple C CB OG lambar sireedka labaadna af English ayuu ku qoran yahay kayaan nambar sireedka u dambeena 10 nambar ayuu ka kooban yahay nambarada saddex xaraf ayaad u aragtaa soo maaha alloora marka nambarka koowaad ka fiiri kaas ayaa wax walba ka raacina ka u horeeya waa koodka Bombay marwo CCV waxaa loo isticmaalaa computer waxayna ila tahay in laga soo gaabshay control C iyo control V oon u taagan koob baas Bello COG na talo maxay u taagan tahay magaalada farxadda ayay u taagan tahay oona ah Calcutta control C iyo control V oo u taagan koobi iyo baast Calcutta talo maxay ka qabanayaan dadkan qorshooduna muxuu yahay mise Bombay wax u maleegayaan waad saxan tahay koodka labaadna fiiri identity tanna maxaa laga wadaa kelimadan ingiriiska maxay u isticmaaleen midaas inaan fahanno waa muhiim kolley burcadda wax ka suurtooba annagu ma garan karno maya ugu horreyn waa inaan soo ogaana ereyga NTT wax laga wado kadibna waa xarfaha inaan isku darnaa wixii ka soo baxana aragno si fiican ila fiiriye TNT waa goobta bambada lagu sameeyo waan soo hubinayaa sug Calcutta iyo Bombay inay qaraxyo ka fuliyaan ayuu yahay qorshahooda 12 nambarna maxay yihiin maxayse ula jeedaan taliya sad u jeeday imikaba siiro ayuu ka bilaabmayaa lambar walba laba lambar markii ka gudbaana laba siiro ayay noqonayaan waa la yaab soo maaha nambarka ugu dambeeya ayaa wuxuu yahay 033 nambarkaasna waa nambar kood hindi ah koodkaasna waa koodkii ugu horreeyay magaalada Calcutta loo isticmaalo haddii ay sidaas tahayba 033 waxay u fadhidaa koodka beelkood lambarada dambena waxay tahay Calcutta afar lambar sireed ayaa laga isticmaalaa magaalada Banshut 017 Shamzada 004 Salda 014 magaalada u dambeysana Dollywood ayaa lagu magacaabaa taasna waxay la micno tahay qorshe weerar inay qaadi doonaan afarta magaalana hal mar ay weerari doonaan 26 November ay weerarayaan Bombayna waaba arrin wanaagsan waxa loo baahan yahay maadaama macluumaad haysana inaan tixraacno gacantana aan ku soo dhigno tiim ayaan u diraynaa shaqo wanaagsan dhammaantiin wax wanaagsanaan lahaay ma jirto sidaan dareemaya aftaabna anaga gacanta kuma soo dhigi karin waqti xaadirkan waayo ninkaasi lama oga meesha uu ku sugan yahay teleefonkiisa keliya haddii aan tixraac ku samayno waxa suurtagal ah weerarada uu qaadayo idil inuu bedelo annagana macluumaad aan heli weyne markaas tusaale ahaan halka weerarka uu ka dhacay waa inaan beegsannaa good keliya wax ma soo kordhinaysa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan doonaynaa inaan howl u qabanno ciidankoo dhan ee Calcutta ku sugan waa inaan wargelinaa burcadaas arrimahooda aan ka wargelinaa booliiskana waa inaan dhaqdhaqaaqsan xitaa kuwa badaha ilaaliya waa inaan dhaqdhaqaaqas aan u sheegnaa in meeshooda ka istaagan hawshoodan ay qabtaan aftaab ansaari inta magaaladan si xorriyad leh ugu wareeganayo magaaladan amni ha ka sugina wasiirka arrimaha gudahana waa inaad ii wacdaa ammaanta ood ii wargelisaa si aan aftaab ansaari baxsad aan ugu dilno ama gacantaan ugu dhigno warbixinaan kuu hayaa si fiican u dhegayso hoteelkii ay asxaabteena degnaayeen weerar lagu qaaday booliiskana asxaabteenna way baabi'iyeen qaarkoodna way dhaawaceen ma aysan dhiman waryaa ee way shahiideen dadkaas naftooda waxay u horeen annaga si aan ku noolaanno islaamnimadana ay jirto booska shuhadada allaha geeyo aamiin
mujaahidiinta cali tabliiq shooda sidaas miyay ugu dhammaatay ayagana sidaas miyaa lagu waayey maya sidaas uguma aysan dhammaanin balse ayunkaa waxay u malayaan annaka inayna baabi'i karaan xitaa 10 qof hadday naga dilaan sidaas annaka kuma baabi'ayno een waan dagaalamaynaa waa inaan jihaadnaa jihaad oo keliya ayaa annaka naga go'an waxaana ogaataa geesinimo in loo baahan yahay waddankan waxaad ogaataa diinteenna inaan laga qiimaynaynin dadka magaalkan ku nool masjid xataa nooma daayaan ee way burburiyaan xitaa kitaabadeenna ayay gubaan dumarkeenna xataa way dilaan oo kow ayay ka siiyaan taas waxaa kaaga daran kashmiir hadda kahor ciidamada indiya carruur iyo maata ayay ku laayeen taasba waxaa kaaga daran kashmiir looma oggola qof muslina gudaheeda inuu ku sugnaado xitaa dowladda waxay diyaar u tahay dadka muslimiinta oo meeshaan deggan inay baabi'iso balse muslimiinta ayaaba taas oggolaanayn oo way diideen waxayna diyaar u yihiin jihaad inay kala hor tagaan oo ay shahiidaan si walbay ahaato ilaa iyo haddeertan annaga hindidan xunta ee cashir uma aanan dhigin balse marnaba lagama yaabo inaan aniga jihaadkan joojiyo waxaana ogaataan ururkeenna weligiis inuu jiri doono insha allah berita magaalkan waxaan ka samaynayaa weerar aan kala joogsi lahayn kala katana burburkeeda iyo baaba'eeda ayaa u bilaabanayo الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عديدان سنتاي قرصنا معي كاني لكن سيدو كوغا عديدان على شدادين تاسدوني وصوت ريشة تاسر باينا وغادي إيشاك يا أخي وحما يقرنيا gabadhayda baqshadan hadda uu ku keenay fariin ugu dir una sheeg fariinta haddii aan u diro guriga ma biimaada be yaa u keena fariintaas ciwaankan ma bakasaaye saas ku ogaanaye waa saxantaa gabadheedii santa wax walboo qarson waa uu oga karaa bannaankana waa uu soo saari karayaa xataa dadka asiga jecel qalbiyadooda aad ayuu ogyahay soo sax ma taas tiitay oo fududahay be labadiina laa waay santa labadiina dunida iyo jecel mayno maya gabadhayda dunidan waxa ku nool qof kaloo si xad dhaaf kuu jecel markii laga reebo khaasatan inaan anaga si xad dhaaf kuu jecelnahay taas horta waa oo shalay macalinka iskoolka maxasnoo sheegay mataqaanaa hooyadu wuxuu dhahay ilmeed saahiday u jeceshay markii ayayaasheeda laga taga hooyadii horta ma banaalaba xagga saraa loo xawili laakiin adoogay aawe anigana maxaa siigu imaan waaye akhay sanad walban dhalashadeeda haddii maxaa siigu keeni waayen ayayo aabbahay waxaa umalaynaa ninka qarsanba inas asiyahay oo xagga sarena caas jira soo maaha maya gabadhayda aabbahaaga waa geesi meel fog ayuuna ku nool yahay sidaas darteeda ayuu kugu imaan waaye okay dhib malaha hadisba geesiya sheekadiis adaa ii sheekaynaysa maali mayno waaye gabadhayda kaale laabtii geli madax adeegan maxay tahay mar kasto maxaad iigu madax adeegtaa ii sheeg gabadhan ayaa ka fikiraaya lama baahna aabba inay leedahay inaad u sheegtaan gabadhayda waayahay wiilkayga laakiin ha ka fogaanin gabadhaada
inantaada dee way weynaatay soo maa wan hubaa inay weynaatay weliba aad u qurux badnaatay waaba sababta aan u noolahay hooyadad ayaan ka ballan qaaday gabadhayda inaan barbaarinayo mas-uuliyaddeedana qaadaa ammaankeedana sugayo waan ogahay waana la socdaa adigu qalbigaaga inay boos weyn ku leedahay waana la socdaa inaad ka murugaysantahay maadaamood ka fogtahay inantaada maantana waa dhalashadeeda mar dhowna xaflad ayaa loo dhigi doonaa dad fara badanna way ka soo qayb galaan sidaas ay tahayna aftaab ansaari magaaladan si xorriyad leh ayuu u wareegayaa cid og ma lahan meesha uu ku sugan yahay xafladda inantaada dib looma dhigi karo miyaa waa inaan talaba qaadaa macquul maahan inaan ogolaado gabadhayda nafteeda inay halis gasho adigana garaa ruuqa gabadhayda xaq uma lahan miyaa dhalashadeeda si farxad leh in loo dhigo gabadheena diyaa ka fikir hooyo lahan aabbaheed uma dhowaa waxaad ogaataa xafladdaa yar ee loo sameeya iyada farxad in ay ugu jirto marka inaan farxad gelin maxaad ku diidee sanjana hadalkaaga ma xuma laakiin waxaadba mooddaa in sheekadaas ay tahay qarow waxa adiga 8 sano ka hor kugu dhacay weliba xilligaas waxay ahayd xilliga iyada dhalashadeeda soo dhowey marka ma waxaad doonaysaa gabadhayda dhibaato inaan horseedo adduunka wuu hormaray 8 sanana waa midna dhaaftay maantana gabadhaada dhalashadeeda waaye waa markii ugu horreysay ay ku arki doonto aad marka waan ku baryaa laakiin soo lama socod gabadha sababteeda in dhibaato u gaari karto markii hore adoo dalkaaga badbaadinaya ayay dhibaatadan dhacday haddana waxaan hubaa gabadhaada inaad dhibaato marnaba u oggolaanayn murugta adiga martana ay marayn saakid axmed waxaan hubaa boqoradda u dhalay dhibaato iyo murug inuusan u oggolaan doonin farxadna uun siin doono wixii dhacay way dhaceen hadda iyo dan gabadhaada farxaddeeda waa inaad ka talisaa waa ku baryaa ha igu diidin dhalashadii inantaada ayaa timid invitation la'aan ayaadna ku timid maadaama inantaada tahay burcadda waxaa macquula martida meeshan ka soo qaybgalaysa inay soo raacaan adigana sidaas ayaa u timid soo maahan si aad arrintooda u hubiso iyo tii kale tiimkaygu annaga uma xil saarna famligaaga inay ilaaliyaan laakiin waxaad ogaataa maadaama adigu burcadda raadsanayso oo jeceshahay iyaguna way ku raadsanayaan maadaama ay ku jecel yihiin hana ilaawin howlgalkan oo dhan adiga in lagu xil saaray marwo ilaa hadda jookarka muuse imaan carruurtan way caajisan yihiin waxaynu u baahan yihiin qof ka qosliya maxaanu samaynaa hadda diya anag ma ciyaarnaana noo sheegbe caajisaan dareemaynaa maxaa samaynaa noo sheeg xafladda ayaan bilaabaynaa
haye asxaabe ciyaar ayaa maskaxdeeda ku soo dhacda aniga miyaa idinla ciyaara mise qof kale ii sheega bal hadirtaan kala ma hubtaana waayahay waxaad ii sheegtaan qof murugsan miyaad aragteen ama wejigiisa xanaaq ka muuqdo meeshaan ma ku aragteenna ama adiga mid ka mid yahayna ii sheega bal meelahan ma ka ag dhow yahayna ma aragteen gabadhaas ayaa ambuusan yaa lama kulmaysid waxaasoo kale maxay u samaynayaan eedadi noo sheeg ugu horeen aamusa anigaa idiin sheegaya hay garab ma idiin siin karaa okay xagga eega ninkaas waa boqorka xanaaqa ee kolkataa waad aragtaa soo maha wejigiisa xanaaq ayaa ka muuqda ciyaarteena hadda waxay ku saabsantahay ninkaas waa inaan wejigiisa bedelnaa oon ka dhignaa boqor aad u faraxsan ma igu raacdeen tallaabadaas ma qaadi karnaa ma samayn karnaa ka waran hadduu ninkaas nagu xanaaqa annaga hadduu nagu xanaaqa ka waran maxaa soo bineynaa oo isku raacna soo maaha yes beela হাসবে তুমি না 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 রাগী রাজা হ্যাঁ রাগী রাজা একটু হেসে যা রাগী রাজা স্মাইল করে দাও আজকে করেছো কেন তোমরা বেঁচে বেঁচে আজকে করেছো রাজানি মতো বুঝি তোমরা ওমরা ছোমরা হয়েছো যা হয় তা হয় ভেবে থাকতে না সময় দিনটা দিন ছাপ তাই দিন কাটাতে হয় যা হয় তা হয় ভেবে থাকতে না সময় লাফাও ঝাঁপাও আর প্রাণ ধরে হাঁপাও নাচের তালে তালে দুনিয়া কাঁপাও নিয়ে চলো আজ সঙ্গে যা যা পাও ওই দেখো হাসি ঠিকানা রাগী রাজা হ্যাঁ রাগী রাজা এই তো হেসেছে রাগী রাজা হ্যাঁ রাগী রাজা ভালোবেসেছে Igaraalmo. Boorsooyinka idinka maale.
akhbaarta xun ah heshe maxay tahay 2 bomba ayaan ka helnay raadaa sidoo kale Radish 2 nin ayuu gacanta ku dhigay wuxuuna jeebkiisa ka helay ciidanka raxmad ha noolaan warqad ay ku qoran tahay allora aftab ansaari iyaga ayuu la shaqeeyaa amaanda waxaan ka rabaa qolka kaamirada ee hotelka laga xukumo inaad tagto baaritaan aad igu samayso qofka soo galay iyo qofka sii bax intaba waa inaad ii soo ogaataa sida ugu dhaqsiyaha badan warbixin ayaan ka rabaa intaysan qaraxa fulin waa inaan gacanta ku dhignaa orod marka soo raadso maadaama aan la soo laabanin cid inay halkan ka baxdo aniga mar rabo midaas waa inaad la socotaa waay mudane martida halkan ayay joogayaan ciidamada dami baaristane aad ayay u mahadsan yihiin taliya burcadka dhaqdhaqaaqooda 3 meel laga soo sheegay meesha ugu horeyso waa suuqa baabagood suuq cusub inuu ahaa meel kafeteriya shax lagu cabana daday ku laayeen dadna way ku dhaawaceen dad qaarna hadda xaalad halis ay ku jiraan shit il badana qorshahooda wuxuu yahay Soomaal Bambay inay weerar ku qaadaan tali taariikhda maanta waa imisa okay waa 16ka bisha February waan gartay allora marka haddii aan number sireedkii dib aan ugu laaban taas waxay caddaynaysaa taariikhda inay ahayd 26 bisha November 2008 kanna waa 5 star hotel waxay ila tahay marka qorshahooda dhabta inuu halkan ka dhici doono hotelka hotel weyn waaye bal fiiri bal siduu u weyn yahay gurigan raaxa loogu talagalay walaal muslimiinta waxay ku hayaan guryo xumo taqasha ayuka sidan ay u raaxaysanayaan kufaarta raaxadaas maanta ayaa u dambayso waxa ballan maanta dadkan inaan xabad uga shaqeeyo oo ku baabi'iyo meesha laga keenay u sheeg hotelkan sida ugu dhaqsiya badan waa inay uga baxaan dhaqsan kale hotelka dadka ku jira amnigooda waa uu sugan yahay Soomaaliya dhaawacii hore Bambay loogu geystay ma doonay soo dhaawacaas oo kale halkan inuu ka dhaco aftaab ansaariin taas oo kale inuu sababo uma ogolaanayo ma u ogolaahayna taliya waan ku maqlaa zaakar shaydaanka hotelka ku sugan yahay qaybta afraad ayayna u sii socdaan imika kamarada ayaana ka arkay 12 qofna oo la socdaan wayna hubaysan yihiin dhamaantood madaxda waa inaad u sheegtaa fariinteedana gaarsii SOS Calcutta SOS Calcutta hawshadu waa ay bilowdeen amaanda ayaa wax walba noo tilmaamaysa idinkana waa inaad hawshiina qabsataan dhaqsada mala socotaa annaga qaacidooyin fara badan inaan leenahay ugu horeen kufaarka waa inaan dilnaa si aan u dilno kufaarka waa inuu qalad naga galaa qaacidadeena labaad waa baleen b ku soo dhowow baleen b qaacidooyin fara badan ayaan leenahay qaacidada koowaad kufaarka inaan dilno qaacidada labaad ku soo dhowow baleen b fariista wararka haddana soo gaara ayaa waxay sheegayaan qarax weyn inuu ka dhacay magaalada Kolkata dad badanna ay ku geeriyoodeen ciidanka badda kuwa bariga booliska FBI intaba waa wargelina saacad gudahoodayna ku imaanayaan waxba ha ka baqin saxafiyiinta hadalkooda run ayuu ahaa markay dhahayeen qaraxyaal waaweyn ayaa magaalka ku jira balse dadka taas ma aysan xaqiiqsanin walwalka ugu weyn waxay wahaayeen ma taqaanaan weeraradan iyo qaraxyadan isdaba joogga ah waan hubaa arrintan burcadda oo keliya ayaa ka dambaysa si hawshaan ay u qabtaan
muddo fara badan ayay ka soo baaraan degeen dhammaantiin inaa cabsataan looma baahno deganaan waa inaa muujisaan teeda kaleed waxaa idiin sheegayaa haddii uu qarax dhacay ma aha annagu inaa cabsano haddii aa cabsanana micnaheedu maaha inaa burcadda ka cabsano waa inaa isdejina annaka warwelkan iska daaye marwa waan kugu raacsannaa aniga ciidamada militariga ayaan ka tirsanaa waxaan ka baqaynana habeertay magacayga rajiiso waay waxaan u shaqayn jiray qolada dembibaariska tali nambarka aawacda lama heli karo fadlan ku soo celi kaali kamarada maxaa ku dhacay hoteelka kaamirooyin ku xirnayo idil qalqal ayaa gal waxaan samaynana ma naqaano marow waxaan u malaynayaa sababka inuusan ahayn qaraxa dhacay ee waxay ila tahay si kasta in loo jaray waxyaabo fara badan ayaa meeshan ku duugan shit ساكن 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 waan ogahay arrinkan adig inaad samayn karto waad samayn kartaa boqolkiiba boqol diyaa nolosheeda khatar uma bareeri karo waa inaan mas-uuliyaddeeda qaadaa inaad samayn karto waan ogahay diyaa nolosheeda khatar uma bareeri karo mas-uuliyaddeeda aniga ayaa qaaday inaan badbaadayna waa khasab haddii aan u baahannahay inaan burcadda gacantooda ka badbaadno waa inaan qorshe u degnaa si aan meeshaan uga baxno annaka waad saxan tahay meeshaan inaan ka baxno annaga waa aan ku qasbannaa sida ugu dhaqsiyaa badan la weliba waynu ka baxaynaa welwelka iska daaya waqti yar ayaa heesanaa halkaanna waa ka baxaynaa niyadda khayr u sheega meeshaan ka tegi karta haba yaraatee ma jirto saakid axmed wuxuu nagu xukumay meeshiina jooga waana jooga cid baxaysana ma jirto saakir axmed yuu yahay waan gartay على كل حال wax loo baahan yahay mas'uuliyadda hotelkan inaan qaadno dadka hotelka ku jiran waa inaan badbaadinaa hotelka gudihiisna goob dagaal kama dhigi karno irigiin saadiga haatale waxa loo baahan yahay dadkan mas'uuliyaddooda inaan qaad saddex hadafna waa inaan ku shaqeyno midda koowaad dadka inaan badbaadino midda labaad cadowga inaan baabi'ino midda saddexaad ayaa waxay tahay ammaankiina waa inaad sugtaan waayahay hawshiina qabta weerar ayaana lagu soo qaaday qarax ayaa dhacay dad fara badan ayaa la dhaco markaas adiga waxaan ugu leedahay meeshaan jooga weliba qof aan anaga weli wejigiis aan arkin xataa inaan ku kalsoonaano ilaa saakid oo meeshaan ka imaanaya cid dhaqaaqi karto hawa yaraatee ma jirto adiga waad bixi kartaan laakiin anaga meeshaan ayaan joogaynaa meelaa u socon hawa yaraatee ma jirto اوكي waayahay naftiina kaliya ka fikirna nafta dadkan dhan waa inaa ka fikirtaan burcadkaas diyaa meesha ay maana carruurtaan oo dhan ma cafinayaan wal iga tabixir السلام عليكم ولال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تيفي كتارا ولال لا الصع مجاهدين توحي سميين kaal idinka hor dad noceytiina dadka daada waxaa lagu yaqaani
naf jacayl iyo madax adeeg laakiin idinka waxaaba taagantihiin bahalina wejigiis la aqoonnaa sugaynaa sababta la sugaay maxay tahay taas may faahsiin kartid dhegeyso maadaama aniga aan boolis la soo shaqeeyey hadalkayga waa inaad dhegaystaan si aan ii caawiyo waana waa inaan amnigiin sugi doono haddii awood noqoto iyo haddii karti noqoto raajiif iyo mutu kaxeeya ها إنكين صصعيا وأنا مرة بيا كده سيدا دي صصعيا وأنا سيدا ما يلاي sababtoo saaki muhiim idinku yaa maxay tahay sheeg bal sababtoo saaki waa diyaabe وش بكده dhegeysta dhammaantiina taliyaha ugu sarreeya ciidanka ayaan magaciina waa axmed zaakir waxaan idin leeyahay burcadda maanta yaa sidee wax u jiraan dhibaato miyaa jirta هول وناكسن أيا قبتي الشيخ سادات هول وناكسن أيا قبتي واحد قبتي وح وناكسن واي ساسن كهربا maya walaal ilaa iyo hadeertan hoosh waa qabyo anigana waxaan rabaa 10 sano ka hor walaalay waxay ballan qaaday inaan ka soo baxo maanta hooshasni waa dhammaystiraya insha Allah يكون خير إن شاء الله توكل على الله hoteelka maanta hal kaafir inuu ka badbaado lagama yaabo gabigood waan ku dul baabi'inaya waa ballan Allahu akbar gurigeena xitaa kamarada may ku xidhan yihiin haa marow waan gartay dhammaantiina baad baxaysaan inaad baqdaanna looma baahno waddo aan ka baxnana waan helaynaa waa kugu raacsanahay magacayga waa nandita waxaan ka tirsanahay booliska magacaygu waa rajiif militariga ayaa ka tirsanaya go'aankaagan waa kugu raactaliye magacaygu waa maatin harri waxaan ahaa ciidamada qalabka siga hogaamiyahooda ee dalka hindiya waad mahadsan tahay burcadda way ogyihiin annaga halkan inaan ku sugannahay waxaana macquul ah halkan inay u soo degdegaan meeshan waa inaan isaga baxnaa intaan meeshaan ka baxayno bal gabar haddii aan qabtaan maxaa samaynaynaa sisi kamarada ku xidhsan madbaqa aawe xagga fiiri waddada ma waxay ku aadan tahay madbaqa maya tan haddii aad ka baxdaan mid kale ayaad ku tegaysaan kadib ayaa gaaraysaan waddadaas haddii aad ka baxdaan waxaa idinka hor imaanaya jaranjaro iyo weysh mid ka mid haddii aad raacdaan qayb saddexaad aad tegaysaan dabaqaas dhegeysta meeshan dhaqso waa inaan isaga baxnaa ma jiraan waddooyin aanoo tilmaami karto maya mudane aniga taas ma hubo laakiin waxaa jirta hoteelka markuu jaam u yahay shaqaalaha dadka markaa raashinka ama qaar ka go ama aysa ku yaraadaan meel ay ka baxan ayaa jirtay raashinka keeni jireen halkaas wadda keliya ayaan ogahay marka waddadaas daan ka baxna ka waran bravo waddadaas haddii aan marna waana tusi kartaa soomaa nakana dhammaantiin is soo baxaysta waddadaas ayaan ka baxaynaa sidaas aynu baxna codkiina halkaan ka soo bixinacan waay dhegeysta waxaana laga rabaa dadkaana inaan dignaantooda ilaalino oon waxba aanan samayn waa saxan tahay haddii aan kontarooli weyn xanaaqooda murug ayay noo keenayaan nandita hawshan adiga ayay ku taalla qorshihiin adaa laga rabaa hal fikrad ayaa maskaxdeeda ku soo dhacda waa inaan dadkan ka soo aruurinaa ciwaanadooda iyo moobeeladooda see kula tahay
rajiif sidee kula tahay adigana waa beello macluumaadka dadka meeshan joogo idil waa muhiim si aan wax kasta haye adigana maxaad ka dhihi lahayd haddaaba isku raacdeen waxba kama qaba aniga waa gartay nandita adiga hawshada waa inaad bilowtaa rajiif garab sii nandita diyaar waa naga kaan baro zaki hay mudana waxaa muhiim ilaah hoteelkan marka ugu horeysa amnigiisa inaan iska hubino waad saxan tahay taliya aniga kuuka wax karinaya waan la hadlay martidana si wanaagsan ayaa loo martisooraya waxna kama halaabayo hagaag anjeli asxan ayaan doonaynaa soo daa waxaan doonaya inaad raacdo sababtoo hoteelkan qof aan adiga ahayn ma kala yaqaano waddo waad sodsi meeshan aan uga baxsan dadkan aan waddo ugu soo soo socmo labadan waddo maxay kala yihiin mudane dhankan waxaa kaa xigo qolal shirka lagu qabanayo dhankan bidixna waxaa kaa xigo dhisme cusub oo la dhisay 2015 jaranjarooyinka iyo wiishka dhankay iga xigaan midda dhankaas qol lagu shiro keliya ayaa kaa xigo laakiin dhankan waxaan u maleynayaa jaranjaro keliya inay kaa xigto mudane aniga ayaana kaawa meeshaas waan ka bixi karaa dhawaaqa rasaastan halkay noogu imaanaysa ma ogaan kartaa taliya dhismaha cusub ayaan dhawaaqan mar walba ka maqli jirnay haddana waxaan u malaynayaa isla meeshale inay tahay waa ku gartay taliyana kaa yaaqay hay soo soco waxaan u malaynayaa hoteelka qaybtiisa labaad inay martida ku jirto sababtoo meeshaas xaflad ayaa ka jirto meeshaas inay isku qaranayaan waa macquul dhammaantoodana waa taajiriin marka kufaarta meeshaas waa inaan ku baabi'inaa asxaabay maxaan sugaynaa fursadda ugu dambeeda ayaan haysanaa waa inaan dadkaas meesha ku baabi'inaa kufaartan waan dilaynaa halna kama badbaadayo hay saaxiibadana keena
istiiji gabadheeda quruxda badneed aabbaha wuu ku imaanayaa wax makaa halaawo anakaa kula joogno adigu waayo taa aabbahan muu tegi kartid laakiin hal mid samee kaala halkan soo istaag ayeyda la joog anigaa baxaayo kadibna aabbaha ayaa ku keenayaa istiiji gabadheeda maxaa kuu qorshaysan adiga bannaanka inay aadaan rabtaa wax xubana gacanta ku maysid waxaasoo dhan aniga ayaa xalinayo waana ogaa dad fara badan in bannaanka lagu dilay laakiin aniga iyo welwelin aniga ayaa isbasirinayo okay inta garab nagala siinaya aniga ma sugi karin mar warayo burcadda waxaa suurtagal ah halkan inay noogu imaadaan marka waa in sida ugu dhaqsiya meeshaan saga dhaqaaqnaa laakiin taas waxaa ka horreysa kajida amnigeeda inaan sugno waad la socotaa intaana meesha soo gelin 2 qof ayaan dilno iyaga ka mid ah sidoo kale waxaan waa meesha inay imanayaan goordhow sababta CC kameradan ka arkay waa saxantaa waan imaanayaan goordhow laakiin waxba ka baqan laga iska difaaceen okay intay naga soo helayaan waqti ma waystaanba intaas ka hor meesha ka tagay ala kulli xal albaabiyada idil waa inaan iska xirnaa waa kuwii jikada markaas ayaa wax walba noo hagaagi karaa ilaa iyo hadda dadka waxay isweydiinayaan sababta qaraxyadan isdaba jooga ay u dhaceen laakiin taliya raagaf wuxuu ballan qaaday tiim inuu samayn doono weliba gacanta ku soo qaban doono kuwa qaraxyada ka dambeeyey weliba sida ugu dhaqsiyaa badan sababtoo isaga ayaa ballan qaaday shacabkana u sheegay in gacanta lagu soo dhigi doono waxaana rajaynaynaa balankiisa inuu ka soo bixi doono hoteelka qaybta kale ee qaraxda ilaa iyo haddartaan baaritaan ayaa lagu wadaa wixii akhbaarada soo kordha waa idinla soo socodsiin doonaa sida ugu dhaqsiyaa badan sababtoo booliska waynu ku kalsoonahay tallaabada ay qaadaanna guul ayay ka keenaan rakiish biima u geen kartaa hamaru zaakir taliyahan waan la hadlay wax walbana waan wargeli wuxuuna igu yidhi tiim khaas ayaa idiin soo diraya hoteelka amnigiisana waa la sugaya sidoo kalena warbixinta meel walba ayaa lagu faafiyey laakiin waxaan hubaa burcadda wax walba inay ogaadeen xilliga taas waxay la micno tahay wakhtiga ayaa nugu yar burcaddana waxaa macquul ah weerarkooda inay laba jibaaraan midda kale waxaan fahmay weerarkan oo idil waxay u qaadayeen doorashada inay hakiyaan warka aad tirood ku saxan tahay sida uu dhaqsiyaha badan meeshan waa inaan ka baxnaa booliska iyo militariga waxay rabaan qorshaheenna in ay qorshe kale u keenaan waxaan kaa rabaa qorshaha aniga aan ugu talagalay in uu iga dhicisoobin waxaan rabaa in aan ismuujinno kaafiriinta waxaan rabaa waxa aan nahay inaan tusno waa ballan walaal anigaa samaynayo hoteelka ciddii lugta soo gelisa waa ballan lugta inaan ka jaro xitaa hadday soo wataan militariga hindiyo dhan cagta ayaan marinayaa aniga ayaana middaas kaa ballan qaaday insha allah waa ku baryaa si fiican oo fikir haddii uu jiro albaab kale aan kan ahayn oo aan ka bixi karno noo sheegi karto ma jiraan ilaan sartaani waa sar qadiimi ahay haa taliya jaranjaro kale oo qaybta hoos noogu taal ayaa jirto waqti hore ayaan isticmaali jirnay waan ku geen karaa jaranjarooyinkan haddii aan dhammayno qaybta dambe waan tegaynaa soo maha haa taliya haddaa jarjarooyinka aad dhammaysto waxay ku geenayaan qaybta baabuurta lagu xareeyo beella waay yaaqa wax beel ah ma jiraan taliya jarjarooyinkaasina muddo hore ayaan isticmaali jirnay markii dambena qayb iyada ka mid ayaa la shamiindeeyey okay qaybta la shamiindeeyey waa la jebin karaa soo maahan danta haddii ayna baddo waan gartay kaalay waayahay gabadhayda inaa cabsata looma baahna aabbaaga wuu iga imaanaya raali noqoya gabadhayda gabar wanaagsan hataa waa kana aabbaa wuu imaaday gabadhayda mid ayaa jirta oon horey kugu sheegin waa inaan adiga ku jeclahay aabbo anigaba waa ku jeclahay bravo gabadhayda waa ku sugayaa ii soo laabo anjeli isora adigana baastolodan hayso
taliya برافو geesi ayaad iska dhigtay qoriga soo qabsa marka haye waan soo qabsay cabsanne haye waa kana haye okay hadda meeshan dhan waa ammaan qorigan adiga hayso waxaan kaa rabaa marka jikada inaad dib uga laabato maya aniga kaama tagi karo adigoo xaaladan xun ku sugan maya way igu adag tahay halista way sii siyaadaysaa haddii aad halkan ku sii raagto ay garad saman waxaan ku dhahay samee orodbax laakiin tali noloshaada halis ayay ku sugan tahay idhageynsa aniga hayay cabsanan waqtina waan haystaa jikada ay tagaysaa waxaad noo sheegtaa 30 daqiiqo kadib inay soo bixi doonaan halkan aan ka baxsanayn way garad saman anigana waxaan isku daya dadkan inaan naga reebo taliya dhaqso marka maya amarkayga qaado yalla saco waayahay sacohe cabsida iska daa mudane saak wuxuu ii sheegay 30 daqiiqo kadib inaan ka daba tegayna meeshas waxaa ku yaalo jaranjaro qadiimi ah waa halka wadda anaga noo bannaan meeshas aan kaga bixi karno waanu ku badbaadaynaa sida aniga aan jeclaa misna aan dareemayo marwa wax cusub mayaa jiro ninkii ha sameyn ha aasin oo ku baryahay waxaan rabaa inaan idin sheego 30 daqiiqo waa la dhaaf yaa akhi idinka waxaan dhahay mudane zaakira imaana zaakirna ilaa hadda ma imaan yaa akhi meesha ma ku dhimanayna idinka hal noo keenana meesha ku baxnay mudane saakir wuxuu qorsheeyay meesha inaan 30 daqiiqo uga baxno wuuna dadaalayaa isaga way saxantaa gabadhan ninkaas annaga ayuu difaacaya annagana waxaan ku khasbanaa sidiisoo kale in aan u difaacno meeshaanna ma ka tegayno ilaa uu ka yimaado asiga ayaan sugaynaa oo keliya waana waardiyeynaa ilmahan taliya adigaba waa saxan tahay daakirow imaan anaga meeshaan kama tegayno dadkaanna ma wadayno daakirlayn sugayna unuka wax kala samaymayno anigaba sidaas ayaa ila wanaagsan mudane saakir oo keliya ayaan sugayaa meeshan aan ka dhaqaaqina lagama yaabo waa inaan noqonaa hal tiim isku xiran yaana kala dhicin warna soo gaar ayaa wuxuu sheegaya hoteelkaas aniga inaanan u dhawaan karin taa burcad ayaa hoteelkaas qabsatay qofkii u dhawaadana wuu ku dhimanayaa sax waa aniga horta hal fikiraan qabaa fikirkeyga waxaa waaye weerar inaan qaadno weerar cirka ayaan qaadaynaa waxaa loo baahan yahay 2 diyaarad oo kuwa qumaatiga u kaca ah labadaas diyaaradood markaan helno kadibna 12 kumaandoosaan saarana hawsha soo laakiin 12ka aad sheegayso ma ku filan tahay ii sheegba absolutely way ku filan tahay hadda ka hor soo lama socotid howlgalkii bombay ka dhacay 50 qof isaas ku cuneenaan ku dhahay le howlgalkaasba 10 qof aa soo fulisamo kanna way ku filan yihiin maya 22 kuwaas ahaayeen marka sidee uu kalsoonaan kartaa ii sheeg bal kaalo bal adiga maxaa samaynaysaa kaalme kaalani soo raac beerta ad fiiri meeshaan unuka nabad qabin inaka bixin may kula tahay may asuguna ku dhahay burcadaas intaan oo imaanka bacdin ka weyn kasina waana dhamaatay ku dhahay meeshaan ma ka bixin dhowr qof oo anaga noo shaqeeya ayaa gudaha ku jiro midas ogaada bal sidee gudaha ku galaan yaa soo ogolaaday ii sheeg igaraal noqotaliye
inaan kuu sheego waa jecel laakiin waan kuu sheegi waa dhibka intuusan dhicin ayay gudaha ku jireen laakiin arrintaas maaha miday shakhsi khusaysa annagoo dhan ayayna wada khusaysaa horta sug yaqay si markii loo fiiriyo arrintan horta gudaha in dad la geliyo wax fiican waay sababtoo ah burcadaas akhbaarteed unug ma heli leen mayno aniga ahaan haddii aan iska hadlo dadka meeshan ku jira kuma kalsoonaan karo oo baryaa maskaxdaada soo celi dadkan ha dhegaysanin danteena ma wadaan dantooda keliya ayay fiirsanayeen maxaa kugu dhacayaqe maxaa kugu dhacay la iskaga jira dadtan danteennay ka talinooyin may ma hor dhaceenno warkood inaan maqalno sugata inaan wax sameeyo waa sideen yeelaa laakiin sugba war lagu qaadiya iga aamus buuqaan oo dhan looma baahna afkaaga iga xiro aamus yaaqi shubdhaadii horta meeshaa waa ka bixinaya meeshaa ma joogid mudane meeshaas dhalashaa ka jirtay sidaasuu ku galay magaciisana wax kale lama yidhahda waxaa la yidhahdaa daakir taliyo ciidan u ahay sigo daya mar kale inaa la xiriirta sug telefon soo dhaco sug ya halo adeerka waa ku tuugaya ma naga soo gaartiino jikadaan ku jirnaa meeshan kuwa burcdanoo nuu kala wareegso hoteelkii aan joognaa wax lee sameeya hay anaa idin badbaadina ko martida hotel ka mid ah soo wacayaaqay waxaas ii sheegay jikada inay ku xayiriin dhammaantood dadka badbaaday rabaan unaka waxaana laga rabaa sida ugu dhaqsiyaa badan inaan ku badbaadino marka waa inaan wax suubinayaaqay iraal noqda anaa wax suubinay السلام عليكم ولاal وعليكم السلام qorshihii ugu fiicnayaan kuu soo ogaaday waxaan kaloo kuu soo ogaaday martida meesha ay ku qabaysan yihiin meel kale maahan meesha ay ku qabaysan yihiin waa jikada qaybta jikada haddii aad tagtiin wax allaala waxaad doontaan ayaad ka samaysanaysaan howlgalkaana waxaan rabaa si quruqsiyaa badan leega soo gebagabeeyo tan kale hoteelka saaqid axmedaa ku jiraya gabadhiisana kama marraa go'aankaad qaadatay waad ku saxantihiin aniguna waa idinku raacsanahay zaaki aniga waa saaxiibkay waana qof aad iyo aad iigu dhow sidoo kale isagu waa howlgalkan oo dhan in qofka loo xil saaray waxaana muhiima hadalkiisa inaan qaadano maadaamuu idhi 30 daqiiqo waa inaad isugtaan isaga waa inaan amarkiisa qaadanaa tixgelina waa inaan u muujinnaa tallaabo wanaagsan waa inaan u qaadnaa haddii kale meeshan kama badbaadayno innagoo noolna kama baxayno ixtiraam waa inaan muujinnaa dadaal ayaa idinka rabaa ترتيب dhaqso is-ilaali tartiib
dhammaantiina waa inaad dhaqaaqdaan أمس أو كبرياء أفكك حيرة هذه الشقرة يا مغلي مكان هوس إيه كجري البضنة waddadan ayaan ka bixinaa kulligeen ina keeno meesha ayaan noo banaan soo socda idhageyso taliyaha wax walba waa inaad wargelisaan anigana halkan ayaan ku sugnaanaya waxaan doonayaa ninkaas inaan gacanta ku dhigo raqsada marka maxaad nooga hadhaysaa waxaan doonayaa ninkaas inaan gacanta ku dhigo ninka lagu magaco aftaab ansaari ha samayn baan ku leeyahay waan samaynayaa markaan dood ma taagna ee waxay taagan tahay waxaa idin dhaho keliya inaad samaysaan aftaab iyo anigana waan isku aftiranaynaan ku dhahay maanta waa saxantaa wiilkayga anigana waa kugu raacsanaa haye dhaqsada dhaqaaqe ammaanta soco دقاقة يا أخي دقاقة سوسع ولاد قربنا سيا أمبلاس يا أبا هنا قبل حالة دوا أمبلاس يقدر خلي حامله واي
taliya waan isku daynaa gudaha inaan galno waan isku taliya dhegeyso ammaanta ayaa laygu magacaaba waxaana ka tirsanay tiimka loo xilsaaray howlgalka inay ku guulaystaan i dhegeyso Waayahay. waddadan inaad marto ayaan kaa rabaa haddii aad rabto inaad dadkaas badbaadiso hadalkayga qaado waan ku barayaa ma kula taa marka sahal inaan haa dabcan aniga ayaa kaa huba taliya adna waan ku baraya howlgalkana ogolo ninkan meeshan inuu ka galo wax walbana markaas way hagaagayaan aniga saas ayaa ila wanaagsan السلام عليكم وعليكم السلام تيمك أسكرت جودها أي سكوك لا أديك أيني كوبادي جوبوين وحن كهربا بنانك إنا وصبح صدق وتقصيها بدن صوص عيان قدام أعوذ بالله ساعة لقى بالله حبسك يا لين كعبة ruuxanta madow dilkayga maxaad ka faa'iidaysaa annaga sideenaba waxaan u noolnaa inna la dilo ama aan wax dilno magaaladoo idilna waan gubayaa hadafkeennana waa xurriyad muslimiintoo idilna xornimo ayaan siinaynaa insha allah hadafkeennana waan gaaraynaa jinnada ayaan gelaynaa oo kaale adiga jinnada ma rabtid shahiid inaad ku dhimata ma rabtid miya annaka dad walaala ayaanna adiga waxaad ku nooshaa dal ay gaala joogto adigoo dhar ciidana wata misena anigaa biskoolad igu soo taagaysaa anigoo walaalkaa eh sabab war waddankan maxuu ku siiyaa ii sheeg aniga ayaa runta kuu sheegaayo adinka tiridiinna waa yar tahay balse muslimiinta waad yeestaan sawir oo keliya ayaad ka soo qaadaan agtiinnana wax kama ahan meel walba banaarasi ku taal marka la furayo subaxii bisinka ayaa lagu furaa waddooyinka waaweyn magaalada markaad dhex maraysa astaanta islaamka ayaad arkaysaa madaxweynaha loogu jecel yahay waddanka soo maran waxaa lagu magacaabay ABJ cabdulkalaam saddexda aktar ee superstarkan waxay ka soo jeedaan reer khan dhammaantoodaba waa muslimiin aqoonsiga ay wataan waa indiya dadkaasba waddada wanaagga haddii aan lagu tirin anigana waddada wanaagga aa sheegaysid uma babaahnin ugu horrayn adiga qur-aanka ma akhrisaa suuratun almuuminuun aayadda 116 waxay ka hadlaysaa dadka adduunka joogdhan inuu ilaahay leeyahay boqortinimona keligiis ay u sugnaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walboo koonka saaran asaga ayaa abuuray wixii ka maqanne asaga ayaa ka maqnaysiiyey qofkii diinta wanaagsan ee islaamka qaada waayena dunidan ma ahan dunidan inuu ku sii waaro suuratulkaafiruun waxay sheegaysaa ayaad ilowday qof walbaba inuu diin leeyahay diintaada haddii uusan rumaysnayn inaad taada ku qasabto maahan tiisi waa inaad u daysaa isaga ay xaqi fahmi dooneen islaamkuna dilna ma barin ee kalgacayl iyo maxabba ayuu ina baray adiga muslimnimada waxaad ka fahmaysid haba yaraatee ma lahan waxaad tahay kaafir adduunka la siiyey qarxii dhacay 2009 ma xasuusataa oo adiga xaaskaada ay ku dhimanaysay hinduu ayay ahayd
naag hindu oo mushrikada ayaad guursanaysaa kadibna islaamnimada ayaa wax ka sheegaysaa may dadka ayaad been iyo brobagaado ku khiyaanaysaa kadibna waad baabi'inaysaa ciqaabtaadu maxay noqon karaysaa ma ka fikirtay ii sheeg saki xaaladana dhexda ka taagantaha dil haddaa ku xukunto qofba qof ayay kuu dhiibaysaa kadibna dalkoo dhan wuxuu noqonayaa wada dhiig labalaba ayaa laysku dilayaa dil marka xaal ma noqdo waa ku barya tallaabo qaldan inaa qaadda jaahilnimayaysan kuu geynin aayadaha qur-aanka ah labadiinaba hadda dhow aad ka hadlayseen asigaba haddii aqoon uu u lahaa waxaan xaqiiqsanahay inuusan qof bini'aadana dili lahayn adigana ha fududaanin oo ha dilin iska daa labadiinnaba aqoon uma lihidin waddada saxan inaad qaadda haddii aad u baahan taha naftaada waa inaad xumaatada ka ilaalisaa waddo xunna aad u diiddaa saki ma la socotaa horta hadda ka hor waxaa jiri jiray 3 nin waxayna u wada tartamayeen qoraa in ay wada noqdaan saddexdooda ugu dambeyn mid ayaa si fiican u dadaalay heerna gaaray run ahaanta aniga waa jeclaa inaad ii aarguddo dhiig badanna darteed aad u daadaysa balse go'aankayga hadda wuu isbeddelo sidii hore ma aha hubka annaga aan ku dagaalamayna maahan hub risaas ah ee waxaa loo baahan yahay in aan ku dagaalanno dagaal oo geesinimo si burcadda aan u baabi'inno run ahaantii dhallinyaro fara badan ayaa jirta oo dawladda ka soo horjeedo waxayna rabaan mar walba dawladda in ay baabi'iyaan laakiin waxaa u babac dhigay wiil geesiya oo ciidamada ka tirsan rabana dalkiisa iyo dadkiisa intaba in uu badbaadiyo ninkaasna nin kale maaha waa ninka keliya ee dadkan soo badbaadiyey magaciisana waxaa la yidhahdaa zaakir axmed maadaama hawshii wanaagsaneed ou soo qabtay ouna gacanta ku soo dhigay dhallinyaradii dawladda mucaaradka ku eed mar walbana dhuunta u taagneed waxaan sii haynaa hadda kadib abaalmarin waxaa kaloo wax laga xumaado ah madaxa qaybta amniga in arrinkan uu ku lug yeesho raagab ayaga la shaqaynaya wuxuu ahay dhilqa annaga nagu dhex jiro ayagana warbixinta u gudbiyo bakistaan ayuuna ka soo jeedaa jinsiid ahaan laakiin raggii howlgalkaas ku soo guulaystay ee ninkaas ka shifay waan u mahad celinayaa arrinka ay sameeyeen iyo hawsha ay qabteenna waxay noqonaysaa howl taariikh filimkan waxaa lagu tarjumay studio Famproj Mogadishu ले आकाश रोतेरा आराल होले आराल नाम ले हठाৎ हमारा माताल होले চিতার গল্পগুলো ঠিকানা বদলে ফেলে চেষ্টা করার আগে তুমি হার মেনে নিলে
পথে বাধা আসে শত উঁচু পাহাড়ের মতো বলে ভয় দেখে কত এগিয়ে চলো চলে বারুদের মতো চেষ্টা তো করে দেখো হোক কঠিন সে যত একসাথে বলো পথে বাধা আসে শত উঁচু পাহাড়ের মতো বলে ভয় দেখে কত এগিয়ে চলো চলে বারুদের মতো চেষ্টা তো করে দেখো হোক কঠিন সে যত একসাথে বলো থেমে যাবা না কঠিন সময় অজানার ভয় করে নেব জয় থেমে যাবা না কঠিন সময় অজানার ভয় করে নেব জয় আজও পরাধীন কেন স্বপ্নটা ধোয়াটে কুয়াশা যেন নিজের কাছে বন্দি নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী আমি নিজের থেকে পালানোটা এতটা কঠিন কেন ভেঙে যেতে পারি জুড়ে নেব থামবো না লড়ে নিতে পারি জিতে নেব হারবো না শোন লড়াইটা নিজের সাথে আজ বিনা মেঘে পড়ে যাবে বাজ অসম্ভবহীন কোনো অভিধানে এক লোখা অভিমানে বিশ্বাস রেখে মনে ঘুরে দাঁড়াতেই হবে ভয় যদি পিছু টানে যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুর চোখে